adoon hadda hawl karayn hayadu waa hogaad qodee cid kale adigoon hafrayn naftaadana hoojinayn mayadu waa hadal rijaal bismillah assalaamu calaykum dhammaantiin waa mar kale iyo xalqad kale barnaamijkeena sirta nolosha waxaan maanta soo qaadanay mowduuc aynu ula baxnay awoodda ereyga maya awoodda uu leeyahay ereyga maya badanka waxaan soo qaadanaa mawaadiic kala duwan waxaan isku dayaa mowduucaan soo qaadanayaa inaanu noqon mowduuc la daaliyay oo laga yaabo in abwaan hore ka hadlay sheekh hore ka hadlay aqoon-yahan ka hadlay waxaan ka hadalaa badanka mawaadiic saaxadda ku yar cusub saaxadda magaranaysaa meediyaha Soomaalida ama barnaamij kala diyaariyo marka mawaadiicdaasi badanka waxay dhalin karayaan doodo waxa laga yaabaa si aan wax u arkay inaad adna si kale u aragto laakiin waa wax u baahan in laga hadlo oo magaranaysaa mudan in la soo qaato maanta waxaan ka hadlaynaa marka awoodda ereyga maya awoodda uu leeyahay ereyga maya nolosha qofka ibn aadankii waa hayaan waa geedibay ku jirtaa meel bay ka tagaysaa meel kale ay tagaysaa jaamacad baad ka baxaysaa waxaad tagaysaa master dugsi hoosaad ka soo baxaysaa waad ka baxaysaa waad guursanaysaa ubad baad dhalaysaa ubadkiibaad waa nolol hayaana waa nolol koraysa waa nolol kobcaysa waa nolol adigu aad la gabo waa nolol socota weeyaan socoshada ay noloshu socoto ee ay geediga tahay haddaynu tusaale ahaan ku shabahno gaadhiyo kale tusaale ahaan haddaynu ku shabahno gaadhigu wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo lever iyo brake ama ka joojinaya iyo ka dhaqaajinaya leverka iyo brake-gaas gaadhi kasta leh leverka iyo brake-ga waxa la yiraahdaa shayga labada ka muhiimsan waa brake-ga baa la yiraahdaa laba sababood aawadood muhiim buu yahay mid haddii aad gaadhiga u kaxaysatay inaad meel heblaayo tagto ad xaafadda ka baxdo oo meel kala tagto oo aanu gaadhigaagu brake ba lahayn de meeshii aad u socotay marka aad gaadho maba istaajin karaysid xawaarihii gaadhigu soo xawaareynayay iyo socodkiisii iyo orodkiisii iyo leverkiisii micno badan kuma fadhiyo haddii aanu ku geynayn oo marka aad meeshii tagto aanad istaajin karayn de micno badan xawaarihii iyo leverkii iyo gaadhigii micno badan uu sameynaya ma jiro waa mid sabab kamid ah samadu brake muhiim u yahay sabab kale muhiim u yahay haddii naftaadii dhamayd hayaanka u ahayd in meel kala tagto ee gaadhiga saarnayd haddii uu shil gelinayo oo leverka oo quro ood qabataa oo brake qaban weydaa shil buu ku gelinayaa meel buu ku gelinayaa bad buu ku gelinayaa marka haddii uu naftaadii khatar gelinayo gaadhi inaad korto iyo inaad lever qabato iyo inaad xawaareysaa midna micno badan kuma fadhido waa sababta labaad oo brake muhiim u yahay haddaba haddaynu tusaalaha ku dabaqno noloshu waxay leedahay iyo maya haddaynu haada leverkii ka soo qaadno tusaalahaan mayadana aynu ka soo qaadno brake noloshaada geediga ah noloshaada socotay haada ah haddii aanay ku geynayn marka aad meeshii tagto marka wixii aad diidaysay marka lagu tilmaamo haddaanad odhan karayn maya anigu waxaan maan doonayn de meeshii aad doonaysay kuma geynayso waa mid waa laba ee bad bay ku gelin karaysaa hadday noloshaadu bilaabmaya tahay oo shil bay ku gelin karaysaa oo tusaale ahaan waxay kugu qasbaysaa inaad been sheegto ama uu qofkani beenaaleba ku qaato tusaale ahaan waxa lagu yiri waxa caynkaas ma qaban karaysaa waxa caynkaas ma noo qaban karaysaa mana qaban karaysid xaqiiqatan waxa dhacday dabadeed inaad hawshii qaban kari weydo dabadeed qofkii baad koonaysaa war wixii caynkaa waan qaban kari waayay waad u daacad hadashay si laab xaadan baad ula hadashay qofkii shil bay ku gelisay haadii hore oo qofkii beenaalu ku moodaya xataa adiga oo runtii u sheegay ama waxay kugu qasbaysaa inaad been sheegto oo waxaad oranaysaa geeri baa dhacday oo balaayaa dhacday oo sana dhacday been allaad sheegaysaa oo xagga sare kaaga qoran marka noloshaadu haddii aanay maya lahayn waxa ma doonayo noloshaadu haddii aanay lahayn waxa ma awoodo noloshaadu haddii aanay lahayn halka ma u socon haddii aanay noloshaadu brake lahayn meeshii aad doonaysay ma gaadhaysid waa kow laba shil bay ku gelinaysaa oo bad bay ku gelinaysaa inaad been sheegto oo aad wax abuurto mala awaala oo been oo xagga sare lagaga qolayo ayay ku keenaysaa haddaba sababta ugu weyn ee dadku ay badiyaa u yiraahdaan sababta ugu weyn ee dadku mayada ay isaga ilaaliyaan ee ma garanaysaa qof kasta waayahay haye waxa waan ku qabanayaa haye waxa waan sameyn karaa sababta ugu weyn qofku u sameeyaa waxa weeyaan wuxuu is yiraahdaa cidna ka cabanin
wuxuu isiraahdaa hebelyo calool xumo ku qaadin wuxuu isiraahdaa hebelyo xumaan u fahmin buu qofku isiraahdaa shakhsiyan waxaan kamid ahaan jiray dadka sida wax u fahansan dadka sida aaminsan qof kasta ku yiraahdo haye waxa waan ku qabanaya hay aniga oo iska ilaalinaya qofkani inuu xumaan ii qaado laakiin waqtigu sidoo u socday wuxuu i baray inay calal cagsiga tahay in qofku ku ixtiraamayo markasta oo adigu is ixtiraamto in qofku ku ixtiraamayo markasta oo tiraahdo anigu waxa ma awoodo in qofku ku leex jeclaynayo markasta oo tiraahdo anigu waxa ma awoodo tusaale ahaan mararka qaar ba waxa dhici jirtay in lagu yiraahdo meel heblaaye ma iman karaysa ha waan iman karaya meel heblaaye waxa laga yaabaa 7 cishaba in lagu yiraahdo meel heblaaye ma iman karaysa adiga oo qof ixtiraamaya ama qof isla yu ka soo caban ama yu xumaan u qaadanin ayaad oranaysaa shantaba ha waan iman karaya to Allah dhacaysa dabadeed mid baad iman kari waaysa ama labaad iman kari waaysa sidii aanu sheegnay shilbay ku gelinaysa qofkii been haal ku qaadanaya hadaad run u sheegto iyo hadaad been u sheegto labaduba waa shilaad gashayo laakiin bal aynu ka soo qaadno inaad qofkii maya ku tiri oo ku tiri ma awoodayo maalinka labaad ee qofkii wax kaaga baahdo maalinka labaad uu arin kaaga baahdo horta wuxuu ku soo garaacayaa ama uu ku baahanaya mar uu og yahay meelaad lama huraan ka tahay buu qofkii ku soo garaacaya kolka wuxuu la jeclaynayaa waqtigaaga wuxuu oranayaa hebel waxa aynu doonanaynaa hadii aynu ka maarmi weyno marka waxa tahay qof casiisa ba tahay hebel waxaynu u tagay hebel waa qof waqti leh oo caynkaasa marka waxaynu u tagaynaa marka ma garanaysaa ayaynu arin weyn oo muclo oo u qalma markaas maynu garaacaynaa oo u yeedhanaynaa laba qofku markuu ku soo garaaco judhaba wuxuu koonayaa maalin heblaayo firaaqa ma haysa dabadeed qofku wuxuu ka filanayaa inaad haana ku oran karayso mayana ku oran karayso laakiin haddaad tahay qof markasta ha yiraahda ha waan qaban karayaa ha waan samayn karayaa oo qofka si lama filaana marun ku tiraa maya maanta waxa ma awoodi karayo qofku uu naxaya ilaa wuxuu ka fishay oo ka bartay ma ahe laakiin marka uu qofku ku soo garaaco wuxuu ku weydiinaya war waxa caynkaas ma awoodi karaysaa maalinta caynkaas ayaanu hawsha caynkaas qabanaynaa haana uu ka filanaya mayana uu ka filanaya haddaad ha ku tiraahdo ahsan haddaad maya ku tiraahdo xumaan iyo colaad kuma qaadanayo markasta oo aad qofka u sheegto inaanad waxa awoodeyni waa markasta oo uu la jecleeyo waqtigaaga waa markasta oo uu la jecleeyo aragaaga waa markasta oo uu la jecleeyo oo uu darsado oo uu ku weyneeyo waa markasta oo magaranaysa aad casiis agtiisa ka noqoto laakiin markasta ha waan samayn karaa aad tiraahdo waa markasta oo qofkan u noqoto magaranaysa ay tiir meel ka baxay oo markii la doono la heli karayo magaranaysa markii la doono loo yeeran karayo wax ugu liita loogu yeeran karayo laakiin markasta oo tiraahdo ha anigu waxa ma samayn karayo waxa anigu waan ka mashquulsanahay waxa ma awoodo waa markasta oo magaranaysa ay waxba waxa uu ka weyn yahay lagugu yeeriyo noloshaadana hadii aad yeelato ballama yaro liita hadii noloshaada gebigeeduba wiigaaga gebigiisa ama bisha gebigeedaba hadii aad 90% aad yeelato ballama liita oo aan micno badan ku fadhiin oo aan wax soo saar badan lahayn oo aan adiga lagu baahnayn hadii 90% aad waqtigaaga ku lumiso waa noloshaada 90% ayaad ku lumisay meel liita markasta oo waqtigaaga shaandayso maya waxay ku shaandaynaysaa adiga ku shaandaynaysaa dadka ka shaandaynaysaa in aad tagto qabato yeelato ballamo muhiim ballan kasta ballanta ay ka liidato ballanta ay ka hooseyso laguma soo dhacayo waxa la oranay hebel uu ka mashquulsan yahay marka xaga aad moodayso ama aan moodi jiray ama aynu wada moodayno in markasta oo qofka maya ku tiraahdo qofku calool xumo ku qaadayo ka xumaanaya ma aha ee sawaaba cagsiga markasta oo qofka maya ku tiraahdo waxa ma awoodo aad ku tiraahdo waa markasta oo ku leex jecleeyo oo uu ku ixtiraamo sabab kale oo muhiim ah ku jirta waxa weeyaan qofka hadii aad tiraahdo haye waxa waan ku qaban karayaa adiga oo jirdiidsan ama og inaanad qaban karayn ama og hadii aad qabanayso inaanad u qabanayn si xiisa leh oo ma garanaysaa aad qofkan yara karhayso shaqadan yara karhayso shaygan yara karhayso waxbarashada yara karhayso hadii aad shayga gasho adiga oo waayahay yiri adoo qof qaadi kari waayay laakiin aad shaygi dabadeed isku qaato waxa dhacaysa shayga si 100% uga ma soo baxaysid hadii uu 10 ahaa oo lagu kaale 10 kan u dhig ardaydan oo aanad rabin inaad u dhigto 10 kan waxa suuragal ah 100% wixii aad gudbin lahayd inaanay gudbin
oo boqolkiiba 10 ay gudbaan marka waxa efficiency-ga afka qalaad lagu yiraahdo ama waxa efficiency-ga lagu yiraahdo boqolkiiba 100 marnaba ma noqonayo marnaba boqolkiiba 100 kuma noqonayo oo shayga hadii aanad u galin si aad xiisaynayso si aad ogtahay inaad haleelayso si aan waqtigu ciriiri kugu ahayn oo aad ka fikirayso shan ballamood oo kale si ma garanaysayay aad isu leedahay qofkaana waad qaadi kari weyday adna ma doonaysid si hadaad shayga u gasho adigoo ka laba bogleynaya oo kolba baala dahimoonaya oo aan si kalsooni la hadaan shayga u qaban boqolkiiba 100 marnaba ma gaarsiin karaysid dabadeed dadka qaar baa noloshooduba ay noqotayuun qof aanay qaadi karayn bay noloshoodaba u rarnaanayaan jaamacadaas uu galeeyaa maadaama waalidkii qaadi waayay shaqadaas uu qabanaya maadaama qolada qaadi kari waayay shaygaas uu qabanaya maadaama qolada qaadi kari waayay noloshiisa gabigiisa waxa laga yaabaa inay tahay cid kale uu qaadi kari waayay dabad noloshaadu waxay noqonaysaa nololaan boqolkiiba 100 dadaalka aad gelisa aan midha yeelanayn qofka beerta gelinaya marka uu isagu og yahay inuu beertan leeyahay ee uu goosanayo ee uu tabcanayo dadaalka yar u geliya yaambada yar meel ku qodaa midhaha marka uu isagu og yahay inuu midhahan goosanayo qofku markuu og yahay inuu isagu midhahan goosanayo wuxuu u qodayaa si ka leexjeclo badan wuxuu u qodayaa si ka xiiso badan dabadeed hadii laakiin la soo qasbo oo qof shaqaale yahay oo lacagti lagu yareeyo laakiin uu ku qasban yahay inuu beerta qodo marnaba uma qodayo si ma garanaysaa leexjeclo leh marnaba uma qodayo si leexjeclo marka noloshaada gibigeedu hadii ay haan meedho noqoto hadii ay noqoto culays leh oo aad cid qaadi kari weeday de noloshaadu waxay iska noqonaysaa nolol qof kale u raran tahay adiguna wax soo saarkii iyo dadaalkii iyo halkaraankii iyo hal abuurkii kugu jiray aanu boqolkiiba 100 noloshaada ka muuqan waa faa'iidada kale faa'iido darrada ay leedahay hadii aad badan tiraahdo ama faa'iidada ay yeelanayso hadii aad iska dayso oo maya iyo ma awoodi karayo oran karayso haddaba su'aasha meesha taala waxa weeyaan badankana dadku isweydiiyaan lana qalad fahmi karaya qof baa koodhanaya hawsha ma iga qaban karaysa sideebaad maya ugu oranaysa hawdiiba hadana hadhaysa qofka sideed maya ugu oranaysa hadii aynu isla garanay inay istaahil tahay inay lama huraan tahay inay muhiim tahay inaad qofka ku tiraahdo maya ma awoodi karo waxaana doonayni sideebaad ugu oranaysa ma maya ee naga tag baad oranaysa ma in yabaad oranaysa sidii caruurta sideed qofka ugu oranaysa waayo waxa suuragal in qof xididii wax ku weydiisto waxa suuragal qof ka weyn inuu waalidka wax ku weydiiyo waxa suuragal qof aad ixtiraamaysa inuu ku weydiiyo waxa suuragal cid aad qadarisa inay wax ku weydiiso sideebaad ugu oranaysa maya saad ugu oranaysa waa muhiim waxay muhiim u tahay si aanu qofkani ku qalad fahmin oo adigu u fahmo wax sababtan aad maya u leedahay inay isagana faa'iido u tahay oo aanad hawshiisan boqolkiiba 100 u qabanayn adigana ay faa'iido ku tahay oo aanad waxan xiisaynayn ama wax ka fiican aad qaban lahayd afar talaabo oo fudfudud baan anigu isticmaalaa badankana way iigu shaqaysaa cid kasta marka waxaan jeclahay in afarta talaabo idin la wadaago kow tusaale ahaan qofkii baa ku soo garaacay qofkii baa ku yiri war hawsha caynkaasa ma qaban karaysaa haddaba anigu waxaan adeegsadaa afar talaabo oo yar oo cid kasta iigu shaqaysa waxaan jeclahay inaan idin la wadaago afarta talaabo waxa laga yaabaa in si ka wanaagsan ay u jiri karayso oo maya loo oran karo oo bugaag badan baa jirta imka how to say no iyo bugaag caynkaas ayaa jira oo waxa laga yaabaa qaab ka duwan oo ma garanaysaa in ka wanaagsan la heli karayo laakiin marka aan eegay dhaqankeena iyo dadka Soomaalida bal afartan talaabaan isdhi malaha afarta la sameyn karayo si qof Soomaaliya aad maya ugu oran karayso adiga oo la jeclana tusinaya talaabada ugu horeysa qofku marka uu soo garaaco amaba uu ku hor joogo uu ku raado hawsha caynka iyo caynkaasan doonaya inaad noo qabato markaba ha ku degdegin hadduu telefoonka la hadlayay bal aan kalendarkayga eego bal aan jadwalkayga eego aan kugu soo celiyo hadii aanad kala hubin weeyaan hadii aad hubto oo sheegan xoog u xiisaynaysa maan sheegin hadii aad sheegan xoog u diidan tahayna maan sheegin hadii aanad kala hubin si aanad hadhow u qoomamayn hadaad degdeg tiraahdo ama hadaad maya degdeg tiraahdo telefoonka dhig horto qofka ka dhaqaaq adigu kaliya isla soo faqorto aan kugu soo warceliyo qofka aan jadwalkayga soo eego xumaan qofka uma arkayo aan jadwalkayga soo eego aan kugu soo celinaya ku soo celi ama marka aad xaafadii tagta ana kula soo hadlayo oo hadaad qofka is arkayseen oo si live u wada joogteen aan kugu soo warceliyo waa talaabada ugu horeysa qofkii baad ku soo warcelisay hadii noqoto jawaabtaadu hawsha waan ku qaban karayaa waa caleelaheeda oo halkeeda si hadii ay maya noqoto qofka sidaad ugu oranaysa waa muhiim
maya qalalan maaha qofka waad ku oran karaysaa ma awoodi karo ima suurta galayso waxa igu dhacday maalmaha qaar gaari baan watay waxaan ku sii socday berbera qof baa cidla aad ku arkaysaa meel cidla ah ama askari baad arkaysaa ama cid baad arkaysaa cidan inaad qaado waad rabtaa oo aad meesha heblaaye geyso laakiin haddana kuma khamaari karaysid naftiisa oo halista hadii aad geliso ma rabtid qofka inaad qaado sideed qofkan u oran karaysaa hoto qofka indhihiisa eeg indhihiisa markaad eegto ku dhe erey aan maya ahayn ku dhe erey qalbigaaga ka yimi ku dhe erey aan ahayn ereyadan caadiga la isticmaalo walaal waxaasi ima suura galayaan walaal ma awoodi karayo walaal waxay u eeg tahay hadii aan hawsha kula galo inaan ku hagranayo walaal waxay u eeg tahay hadii aan hawsha kula galo inaan si fiican kuugu waxaad u sheegaysaa qaabka ereyada aad isticmaalaysaa ha ahaadeen qaab ama ha ahaadeen ereyo la falgelaya codsigan uu ka codsanayo hadii aan wallahi beerta ku qodo waxay u badan tahay inaanan ku haleelayno aan gelinka hore uun ku haleelayo kolkaan gelinka hore ku haleelana marka waxaad u sheegaysaa qaab baad ugu sheegaysaa la falgelaya shaqadan uu ka codsanayo waa talaabada labaad talaabada saddexaad waxa weeyaan sabab baad u raacinaysaa qofka sabab baad u raacinaysaa tusaale ahaan jimcaha gelinka dambe wax lagu weydiistay waxaad ku tiri walaal jimca waa la iska ogiyay jimcaha in fasax la wada yahay laakiin jimcuhu qof wax ku weydiistay waxaad tiri walaal jimcayaasha ma soo baxo oo waayaba imanaysa marka jimcayaasha ma soo baxo haddaan jimcayaasha soo baxo oo aan habeenka shaqeeyo oo aan gelinka dambe shaqeeyo wiigaas oo dhan baa iga khasaaraya oo wiigaas oo dhan baa igu adkaanaysa inaan shaqeeyo maadaama jimcuhu tahay maalinta qura ee nasto marka caadiyan jimcaha ma baxaba oo wax xeeran leeyahay marka qofku uma qaadanayo inaad si shakhsiya isaga u diidan tahay laakiin wuxuu u arkayaa inay tahay wax aad maalin kasta samayso cid kastana ku samayso واساسو كله ولا الحير كان ما تشبين كريه حير كعين كا عين كاس ما تشبين هذا سلا وحيين ساسانو يلا عاديا به waa generalize karaynaysa sababtaada waa general kama dhigaysid sabab isaga uun qabanaysa laakiin sababtaada waa generalize karaynaysa waa si guud baad u eegaysa marka qofku uma qaadanayo inaad si shakhsiyo u diidan tahay talaabada u dambaysa marka aad saddexdaas soo samayso marka aad qofkii hubsato jadwalkaaga aad soo eegto ee qofkii waqti ka maqnaateed adigu gaaris kula soo faqdo marka aad qofkii ereyo wanaagsan oo aan maya qalan ahayn aad ku tiraahdo saddex marka aad u raaciso sabab ku ladho mayadaadii ama ma awoodi karadaadii marka aad ku ladho sabab talaabada afraad ee aad qabanaysaa waxa weeyaan qofkii wuu ku ogolaaday marka haddana waad laab xaadanaysaa qofkii waxaad koonaysaa maalinka caynkaas idima soo haleelayo laakiin wixii kale ee iga baahataan waad ila soo hadli karaysaan waxa caynkaas idima qaban karayo laakiin wixii tala iyo tusaale iga baahataan waan ila joogaa markasta maalinta jimcaha idima soo haleelayo laakiin maalmaha ka horeeyad shiraysaan waan idin iman karaya waad laab xaadanaysaa qofkan waxaad u sheegaysaa inaad isaga uun maalinta diidanayn ee aad maalin kasta oo kale haleeli karto ee aad wax kasta oo kale ka caawin karto ee aad si kasta oo kale oo ay jeclaadaan aad u caawin karto qofka waad laab xaadanaysaa waxay la tahay afarta talaabo qofka lagu isticmaalo ama qofka si wanaagsan oo niyadsan u isticmaala in qof kasta kuugu shaqeynayso inay hawl kasta kuugu shaqeynayso ama macallin ahaw ama dhakhtar ahaw shaqada doontahay wala wada waa wax aanad doonayn inaad samayso waa wax aanad awoodi karayn laakiin aad rabto inaad ku jojoobto marka ha isku jojoobin ee barasada maya loo ilaahdo isticmaal afartan talaabo ama talaabooyin kale aad adigu isticmaali karayso shakhsiyan marka aynu baranno sida loo ilaahdo waxa ma awoodo aynu baranno sida meeshii aad u socotay aad magaranaysa halkaasan walaal anigu doonaya halka maan doonayn waxaasan walaal u socday anigu waxa maan doonayn bal noloshaada week qura isku tijaabi bal week qura wax kasta codsi kasta oo lagu sheego qof kasta oo ku yiraahdo kaale meel heblaayeen tagina bal isku eeg weega wax kasta oo aan doonayn bal ma yadhe wax kasta oo doonaysana haadhe waxa dareemi doontaa in culays badan ka dhacay waxa dareemi doontaa inaad xor noqotay waxa dareemi doontaa farxad badan waxa dareemi doontaa in wixii aad adigu u jeeday aan lagu jujuubayn waxa dareemi doontaa adigu riyada iyo hanka aad leedahay iyo himilada aad leedahay inaad adigu u gaadiidan tahay inaad adigu u socoto ee si aanad cid kale u rarnayn aanad cid kale hankeedii iyo himiladeedii rumaynayn waxa aad dareemi doontaa inaad adigu nooshahay mushahar baa ku qaadan hadaa doonto laakiin mayada iyo ma awoodo iyo ma karo iyo waxaas walaal igama suura galaan
waxay naftaaday mushahar u tahay hankaagay mushahar u tahay himiladaada mushahar u tahay naftaada tusaysa inaad ixtiraamayso waxay kor u qaadaysaa kalsoonida aad naftaada ku qabto ay kor u qaadaysaa waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkan ereydii markii ugu horeysay aan ku bilownay ee kamid ka ahaayeen adoon hadda hawl karayn hayadu waa hogaad qodee cid kale adigoon hafrayn naftaadana hoojinayn mayadu waa hadal rijaal